murtida maanta. wiil horweyn lihi wuxuu hoogo oo haraadaba haleelada maal. yididiilooyinka loo hawshoodo gaaritaankooda waxaa ka mid ah qaar aan la gafin haddii loogu hawlgalo habka ay leeyihiin marimadoodana loogu hagaago sida dhaqashada xoolaha, beerfalashada, xaaskorinta iyo shaqada guud ahaanba oo intaba dhibaatadoodu soo hormarto dheeftooduna dambayso. murtideennan maanta oo arrintaas ka faalloonaysaana waxa ay ku tixan tahay hees geel iyadoo ku halqabsatay ninka lihi wax kasta oo shiidaad hawshiisa ka soo gaadho ee uu la huhleeyo oo la hahleeyo inuu ka kabanayo markii uu ku gaajo iyo oon tirto caanaha halihiisa dhalaye dambar macaaneeyey. waxaase laga qaadan karaa heestan ulajeedo ah in loo yeesho adkaysin iyo firfircoonaan hawl kasta oo laga filayo guul aayaheeda ka soo hiraysa. wixii dhibaatooyin isku horgooyana loogu bareero in dheefta ka dambaysa looga biskoon doono. haddii ay ummadi u halgamayso gobonnimadeeda una hanqal taagayso madax bannaani ay kaga taliso aayaheeda dalkeedana ku hormariso, waxaa hubanti ah inay gumaystaha ishaleelayaan oo uu ku hor istaagayo hubkiisa uu u looshaday in uu ku wareemo aadminimada. ummadaha madaxa la soo kacayana xaqooda ku waasiiyo. inkastoona ummad gumayste la halgamaysa kala kulmayso cadaadin kala jaad ah, waddaniyiin geesiyaal ahina ay uga geeriyoonayaan, misena taasi ma aha in laga waabto oo sharafta gobonnimada ka qiimo weyn wax kasta ee loo huro. intoodii dhimatana miraheedaa dhaxal siinaya magac taariikhdeeda aan ka tirmin oo ay ku helaan. intii noolaatana iyadaa ka dhayi dhaawacyadii gumaystuhu u geystay, sida laga dhuuxayo murtidan odhanaysa wiil horweyn lihi wuxuu hoogo oo haraadaba haleelada maal. xagga beerashada dhulkana waa loogu halqabsan karaa tixdan oo waxaa la og yahay ruuxa beerrayda ahi wax kasta oo uu u hawshoodo ee dhidid dhafoorkiisa dhabacleeyo in uu marka dambe ka dhergayo tacabkii dhudhunkiisu dhaliyey, bulshadiisuna u baxsanayso oo ku baahi tiranayso. hawl kasta oo lagu hormarinayo dhaqaalaha dalkana waa in loogu adkaysto aayaha ka soo hiraya aawadiis.